waxaan dareemay inaan gadgadaal u soconayo xagga lalabada. waxaan isdhahay waa lagu hayaa. akhyaarta waa idin salaamay kusoo dhawaada YouTube channelkayga. wiiga hore meeshaan ugu tagnay baa kasii wadaynaa. marka 10 weeks waan soo arkay waxyaalaha la kulmay baa haddana maanta ka hadlaa. shalay baa waxaan galay 11 weeks. marka 11 weeks hadda kama hadli karo. marka ii dhamaato aan iyadana ka hadlaa waxaan la kulmay. shalay dhalashadeeda ahayd marka waan iska nasanaayay, waa la suureynayay, ninkeyga gabarteeda suureynayay, marka waxba ma qabanayni. sidaas darteed maanta waqti u helay inaan videoan idiin soo duubo oo waxaan isku dayaa inaan idiin soo dhigo. Okay, so 10 weeks maxaa dareemay? Okay, 10 weeks markaan galay waxaan dareemay inaan gadgadaal u soconayo xagga lalabada. waxaan isdhahay waa lagu hayaa. bes haddana waxaan bilaabtay taagsidii mishaaridii aan ku noqday. cunto saas dhan iguma baxaynin. sunflower seed iyo waxaasaa cuncunayay. gaajada haddana markaa gaajo dareemo taasaan iska cuncunayay. haddii kale lalabadu iga sii dareen haddaa gaajo dareemo. cuntooyinka aan cunayay waa idiin soo gelinaya inta aan hayo oo sawiraan ka qaaday waa nila qaybsana waa arkaysiin. hablaha badanaa isku mid ma ahan oo waxaa laga yaabaa gabdho inay walacooda zaa'id yahay markay 8 week galaan ilaa 9 ilaa 10 ilaa 11. aniga laakiin shakhsi ahaanteeda waxaan ka hadlayaa teeda waxyaalahan la kulmay aan ka hadlayaa. marka haddii hadda aan walac ku hayo videogan fiirsanayso cuntooyinka aragtidiisii waxaas ku dhibayso markaan soo gelinayo indhahaada ka duwo ha fiirsanin hadday ku dhibayso cunto inaa aragtid macnaha. okay, maxaan la kulmay week 10kii sida idiin soo sheegay. okay, cuntooyinka dhan dibaan u noqday. mushaaradeedaan ku noqday. sunflower seedkaasaa cunayay. Jamaican party oo aan soo gado ku kuleysto aan cunayay. adiga waxyaalaha oo markaas yaryar aan cunayay. laakiin dhammaadkii waxaa u malaysaa 10kii markuu dhammaanayay inaa xoogaa soo roonaado haddana xoogaa yar. walaca wuu iga dhamaado ma dhihi karo weli sababta 3 bilooda ugu horeeya ku jiraa weli igama dhammaanayo. markaan 3 kala galo oo second trimester markaasay gabdhaha badanaa nafis dareemaan oo walacay waxaas ka baxa siiba 13 weeks 14 weeks. marka dadka isku mid ma ahan, gabdhaha isku mid ma ahan. gabdho waxaa laga hadda waqtigan aan ku jiro aniga inay macnaha walac xun hayo. gabdhaha laga yaabaa walac dhan inay arkin inta uurka lahaayeen oo dhan inay walac dhan arkinaa laga yaabaa. marka dadka jirkooda hablaha isku mid maahan. xataa aniga naftirkeyga uurkeyga hore iyo uurkan isku mid ahayn. iska dhaaf hablaha inay kala duwan yihiin. hal gabar aabo 3 cunug hadday dhasho uurkeeda kala duwnaan karo. marka aniga uurkeygii haddaan ku fiiriyo tan cunugteeda koowaad uurkeeda aad igu darnaayo. walac wuxuu ahaay zaa'id. marka siiba markaan sida kanoo kale horta 6 week dhammaadkiisa igu bilaabmay ilaa 7 week horta ilaa iyo 14 weeks meelahaas miya waa lihaayay walac zaa'id. xataa cunto dhan igama degayn. wax walbo cuno waan soo celinayay. marka dhakhtarka xataa in la dhigo faleebalay suro aan gaaray taas ma fahamtay uurkeyga hore. marka qofka shakhsiga ahaaba uurka maxaa la dhahaa ciyaalka gabarta haddii 3-4 dhasho uurkeeda kala duwnaan karo. marka haddaa aniga shakhsi ahaanteeda isku fiiriyaaba labadeeda uuraaba kala duwanba. kana waxaa u malaysaa inaan nafis dareemayo. marka gabartii ay ku cusub tahay haddii walac xun cunugaada kugu horeeyo oo noqdo ha ka cabsana cunug labaad inaad dhashidaa isdhihin ama kii oo kale la kulunto. waxaa laga yaabaa inuu sideedoo kale oo kuu fududaado oo macnaha kii hore oo kale oo noqonin. marka isku mid maaha. uurkan isku mid ahayn, walaca isku mid ahayn.
sidaa dareemaysa isku mid ahayn marka way kala duwan tahay. Okay, cuntadan soo gelinaya marka haddii cuntada ku dhaweyso qof hadda walacsan aad tahay oo cunto dhan aan arki karin indhahaada ka qarso. cuntadan soo gelinaya wixii oo aan soo cunay time weeka wixii sawiro aan ka hayo macnaha dhakhtarka jaa wuu ii sheegay inay ironka igu yartahay birta jirkeyga. maxaan dareemay daaldaalkaasaan dareemay daaldaal zaa'id ah oo ironka maa keenaya uurka iyo ironka isku kaydarsame miya haddana waa shaqeeyaa wixii maa isku kaydarsame ma ogi laakiin daaldaalaan dareemaya zaa'id ah inaan iska seexdo aan jeclaysanayo. laakiin jaaniskasaan helaynin waa ogtii nolosha orodka lagu jiro. waxaan qaataa prenatal vitaminska oo ironkii wax walba ku jiro oo cunuga u fiican hooyada wixii ka dhiman ku kabayso prenatalkaas subaxii iyo galabtiyaa laga rabaa inaan qaato. inkastoo markaa walacsan tahay gabdhaha qaar dhibo inay cabaan aniga waxaan ka mid ahay macnaha dadka dhibo inay prenatal vitaminska cuno sababtoo weli walaciyaa ku jira marka si fiican igama bixaan. kaloo dareemay xagga meesha qaskii meelahaas oo xoogaa xanuun sida maaragtay markii caadada kusoo hayso oo kale xanuun yar aan ka dareemay. waxaa laga yaabaa dhaqdhaqaaqayga badan marka inay taas keenaysana waa laga yaabaa. haddana aada maalintii oo dhan waa shaqeynaa waxaan qabanaa waa istaaganahay laga yaaba. iyo waxaa kaloo keeni karo minkii iyo wixii gudaha u kala durdurqaayo oo macnaha minkii boos raadsanayo oo sii weynaanayo taasna way keeni kartaa. marka xanuunkaas aan jirkeyga ka dareemay waxa keliya aan dareemo waa xanuunkaas yaroo crampska iska ah oo aan dareemay iyo daalkaas aan jirkeyga ahaan ka dareemay. cunuga intuu la egyahay sawiraa soo gelinaya. okay, week 10 embryo wuu ka baxay cunuga fetus waaye hadda muuqaalkiisa cunuga ama muuqaalkeeda wuxuu usoo ekaanayaa bin aadan. awal uma ekeen markii ultrasound lagu fiiriyo laakiin hadda xoogaa bin aadan usoo ekaana sankii wixii wejiga muuqaalka waa arkaysaa. waxaa kaloo madaxiisa mar walba cunuga jirkiisa kale wuu ka weyn yahay. week 10 waxaa u dhamaystirmay wadnihiisa cunuga oo hadda si fiican caadi u shaqeynayo laba jabaarkaada intaa adiga uu shaqeynayo kale u shaqeynayo wadnaha cunuga waa u dhamaystirmay. cunuga xataa hadda waqtigan oo kale hooyada caloosheeda wuu ku dhex socdaa laakiin waxaa laga yaabaa hooyada inay dareemeynin sababta cunuga weli wuu yar yahay marka 20 weeks qaar ku dareemaan qaar 22 weeks siiba weliga haddaa soo dhalin 22 meelahaas iyo 20 inaa ku dareenta laga yaaba cunugaada dhaqdhaqaaqiisa. laakiin hooyada wax soo dhashay waxaa laga yaabaa inay ka hor dareento laakiin dumarka isku mid maahan. hooyo xataa hore wax usoo dhashaa laga yaabaa inaysa cunugeeda dareemin ilaa ay ka gaarto 20 weeks. laakiin waqtigan haddaa ultrasound lagu fiiriyo cunugaada wuu dhaqdhaqaaqaya haddana jilbihiisa iyo suxulladiisa hadda maxaa la dhahaa wuu leleexin karaa oo way shaqeynaysaa. waxyaalo badan weli waxaa ku socdo macnaha cunuga sameys weli muu dhamaystirmin laakiin stagekii waqtiyadii bilaaga wuu aad iyo aad heer oo wuxuu jooga cunuga macnaha waxyaalo badan oo loo sameeyey oo uu weynaadayo sidii hore ma ahan. awal wax yaroo aad u yaroo oo la dareemeyninbo inuu bin aadan yahay in kale oo ay haddana waa weynaaday oo haddaa ultrasound ku aragtid waa dareemaya qof bin aadan uu eegaya sankii iyo wejigii iyo wixii dhagihii iyo marka wiigayga saasay ahayd iyo wax yaroo oo dheeraad ay macnaha cunuga aan ka hadlay. shalay waxaan galay 11 weeks 11 weekaasne shalay ii bilaamatay maanta 11 week iyo hal beri aan ahay marka kama hadli karo laakiin waxay igu bilaamatay si wanaagsan shalay markaan galay dhalashadeeda ahayd. cuntada oo lii keenay sariirteeda loogu keenay
baa idin soo gelinayaa awal appetite uma haynin laakiin waxaan dareemay in appetite-ka xoogaa ii furmay sababto cunto kala duwanaa lii keenay oo quraac ah waa idin tusinaa sawiraan soo gelinayaa macnaa inaa hami u yeeshto inaa cuno aaba keenaba 11 weeks marka si fiican ay ugu bilaamatay waxaan rajeynayaa in si fiicantaas aan ku dhameysto walaca weli wuu jiraa laakiin sidii hore ma ahan okay cuntada waxaan ii soo gelinayaa shalay bulshadeeda quraacda waxa cunay macnaa 11 weeks soo igu bilaamay ay idin soo gelinayaa laakiin weeka kale ay idin soo duubi doonaa waxyaalaha oo markaan dhameysto 11 weeks waxyaalahan kala kulmo cuntada oo quraacdan ii soo gelinaya inuu hamigeyga soo fiicnaaday marka waa kana okay caloosheeda idin tusina waa kana inaa uur leeyahay weli lagama dareemayo xoogaa wuu soo baxsan yahay waa kaasa laakiin ma lis dhahayo qoftana uur la xis leeyahay cunta iska dharjisay marka waa kaasa week 10 waa dhameystay caloosheeda saan waay marka week 11 aan marka idin soo duubaya okay akhyaarta week 10 waa kasoo hadlay halaasaan la kulmay commentiga aan ku kala faa'iideysano hadda walac tahay iyo hadda uur leedahay waxyaalaha la kulmaysid hoos igu soo qor videoga hadda gabar ka seesid walac ama waqtiga ku jirto aan ku jiro ama uurkeedu meel dheer maraayo la qaybso videogan waa ku maasantihiin dadka jaa hore ila socday dadkii oo cusub oo hadda kusoo biiranay soo dhawaada aad aadan igu mahad celinayaa and see you next time حكي قرحته مياي حبي عيد كلام معاك وحقيقي كرتا معاك